aad iyo aad u mahadsantahay cabdi waaxid. annaka runtii waxa weeye wadanka ayaan hoogaa dib u soo noqonnay markii adigu muddo sanad iyo wax kale sanad iyo barmeelahaas ku dhawaada aan ka maqnayn. hadda wadankuna waa wadankeeni, deegaanka aan joogna waa deegaankeeni aan ka haynay khawaarijta al-shabaab. alxamdulilah rabbilcaalamiin. haddana aan diyaar u nahay wixii deegaanada ka jira oo la dagaalankaas argagixisada ah inaan sii xoojino aan diyaar u nahay. marka soomaalkeena sidaas uga saabsanay. waxaa jira in dagaalo ay ka dhaceen deegaanka bohol oo ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dawladda ku dhex maray. bal dagaalkaasi waxa uu ahaa qoraal aad soo saarteen, waxaad ku eedeyseen inay ka dambeeyaan madaxda galmudug iyo xubno ka tirsan dawladda federaalka ah. maxaad sababta ugu eedeyseen ay ahayd? cabdiwaaxidow runtii aadaad u mahadsan tahay. dagaalka halkaa ka dhacay bohol wuxuu ahaa dagaal nasiib daraa buu ahaa. dagaal yani waxaan isleeyahay nimankaas hadda aan la dagaashanahay oo aan ziyaaradii sheekheeni sheekh yuusuf sheekh ibraahim aan ka cilaaminay oo aan ka sheegnay inaan la dagaalamayno. dagaal ay hurinahay dabada ka wadaan ayuu ahaa. marka hadde nimankaasna inaan dagaashanahay cidna daah kama saara. ciddii ka dambaydana waxaan isleenahay waa cid lasoo adeegsaday weeye oo gacmo kale ay jiraan, iyadu aysan ahayn midda afkaartaas curisay aysan ahayn. marka arrinkaasi arrin nasiib daraa buu ahaa. waa ka tacsiyeynayaa wax alla wixii wax ku noqday. intii ku dana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdowsi ha ka waraabiyo. intii ku dhaawacantana ilaahay loo bogsiiyo. ciidamadii runtii dawladda federaalka soomaaliya iyo ciidamadii galmudug ay ahaayeen waxa yani arrinkaasi uu dhex maray oo deegaanka yani dadkii selanba inay wada difaacaan la rabay oo si khaldan looga dhex faa'iidaystayo yani sidaas ayakoo jooga oo isu diyaarinaya sidii khawaarijtii ula dagaalami lahaayeen in gacmo inta loo soo adeegsado nimankii argagixisadaha gacmo soo gashadaan ay yani dhahaan cadowgeena yani ciddii burburinaysa waa ku gacan siinayna oo naloo soo adeegsadana aadaan uga xunnaa arrinkaas. ama dad ku jira systemka galmudug ama dad ku jira dawladda federaalka soomaaliya ula kastay tahabaha ka dambaysa. waxa weeye runtii aadaan uga xunnaa arrinka. arrin nasiib daraa bay ahayd. waa arrinkii meeshaa ka dhacay aadaan uga xunnaa. sheekh maxamed, waxaa laydinku eedeynayaa in deegaano nabad ahaa aad adinku timaadeen, maamul ka jira, abaabul ciidanna aad ka dhex bilowdeen. dadka eedaa qaba maxaad ugu jawaabaysaa? xaqiiqda dadkii deegaamada hadda nabadda ah ciidanka lagu soo duulo la dilahay waa dadkii nabadda ka dhigaba. cidda kusoo duulaysahna waa hadde waa la iska garanahayaa. dawladda federaalka soomaaliya oo hadda ka jirta yani waktigeedii uu dhamaaday. labadii gobolo ay xoreeyeen ahlu sunna waljamaaca waxay ahaayeen gobolka galguduud iyo gobolka gedo. labadii waxay isku dayeen inay ka qabsadaan. waana runtii fikirkoodii gadaal laga riixayana waxaad moodaa xoogaa inay waxooga uga guulaysteen aad moodaa. marka ciidanka hadda dawladda federaalka ee halkan lagu soo daabulo horena qalalaasa uga geysta haddeerna ay rabaan inay qalalaasa ku geliyaan. waa ciidan laga soo daabulahayo muqdisho laga soo daabula. ma ahan ciidan deegaankii iyo galmudug masalanba yani maahan. waxa weeye waa ciidan laga soo daabulahayo awoodiisa magaalada muqdisho. kii gada lagu daabulo markii hore oo ciidankii ahlu sunna waljamaaca halkaa joogay ee dawladnimada soomaaliyaba aasaaska u ahaa oo deegaamadii iyadoon lacag dawladda ku bixin, iyadoon yani dhaqaale ku bixin, iyadoon hub ku bixin ay iskal saareen ee culummadii ay yani ka sifeeyeen deegaamadaas ayay waxay dooneen in ayaga haddana ka qabsadaan. marka shabaabkii fikirkiisiyaa lasoo dhex marsiinahayay. annaguna waxaan rabna shabaab in haystaan inaan qabsano oo aan kala wareegno. marka halkan deegaamadan lagu soo dhaweynhayay dawladda federaalka waxaan islahayn haydinla qabteen ceelbuur iyo ceeldheer iyo ceelgaras iyo bahalkii la dhihi jiray yani galhareer iyo xaradheere. inta galmudug ay ka haystaan nimankaas haydinla xoreeyeen. ujeedkeenu intaas yahay. marka inay intii yani lahaaye ay dhahaan intii hore u xoreydaan ka xoreynayna arrin nasiib daraa weye. arrinkaasna waa fikri ay ka dambeeyaan nimankii khawaarijta ay ka dambeeyaan. hadda waxaad ku sugan tihiin degmada Gurceel oo shalay galinkii dambe ciidamo ahlu sunna ay la wareegeen. muxuu yahay qorshihiina idin xiga? runtii waxa weeye